madaxweynaha Soomaaliland ayaa magacaabida guddidan waxa uu ku yiri mudanayaal sida aad la socotaan waxaynu qaran ahaan hore u qaadnay tallaabooyin aynu kaga hortagna xanuunka safmarka noqday adduunkana ku sii faafaya ee coronavirus COVID-19 ama 19 waxaynu abaabul xoogan iyo heegaba gelinay shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka oo baaritaano iyo hubin ka bilaabay dhammaan madaarada diyaaradaha dekedaha iyo xuduudaha dalka laga soo galo waxaa loo baahan yahay ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliland dadaal diyaar garow iyo ka hortag inta ka badan sidaa darteed waxaan idin magacaabay ayuu yiri madaxweynuhu isagoo la hadlay guddida heer qaran ee uu diyaar garowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus COVID-19 ama 19 waxaana xiriirka wada shaqaynta guddida hogaamin doona wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland waxaan idinka rajaynayaa ayuu yiri madaxweynuhu inaad xil weyn oo culus iska saari doontaan oo diyaar garowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus xubnahaasi guddidaasi heer qaran ee uu diyaar garowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus ee uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland أحمد ساكي داير عسان وارباهين تقرن كقصر مدعتوية سومالان إيه هرقيسا